labadan mudaharaad midka hore oo ahaa ka xoogan ayaa waxa uu bilaabmay abaar 10 iyo barkii subaxnimo isaga oo markaasi ka soo bilaabmay dhinaca xaafadaha dhigta ee magaalada Boorama dadweynaha aad u tiro badan oo u badan dhalinyaro isla markaana lulaya boodhad kuna dhawaaqaya hadallo ay ku tilmaamayaan inaanay haba yaraatee raali ka ahayn isla markaana ay tahay cadaalad darro qaabka loo qeybiyay saami qaybsiga golaha wasiirada ee cusub ee u dhawaan magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa cagta isla helay isla markaana socod ku soo maray wadada laamiga ah ee marta bartamaha magaalada Boorama dhalinyaradan mudaharaadaysay oo dhagax tuur ku sameeyay ciidamada nabadgelyada ayaa qaar kamid ah ciidamada militariga waxa ay la beegsadeen rasaas ay kor u ridayeen isla markaana ay ujeedadoodu ahayd inay ku kala kaxeeyaan mudaharaadayaashan mudaharaadayaasha oo marba marka ka dambaysa si xooganaanayay ayaa markii ay soo gaadheen dhinaca xaafadaha bariga magaalada Boorama ee loo yaqaano Sisibta ayaa waxa ay fooda isdareen mudaharaadayaal kale oo ka soo horjeeday isla markaana ku dhawaaqaya inay raali ka yihiin saami qaybsiga golaha xukuumadda ee cusub isla markaana aanay doonayn in mudaharaadada noocan oo kale ahi ay dhacaan marka aan dib ugu laabto mudaharaadkii weynaa ee maanta lagaga soo horjeeday qaabka saami qaybsiga golaha wasiirada ee cusub ee dhawaan la magacaabay ayaa qaar kamid ah mudaharaadayaashaasi ay xaafada u cabireen dareenkooda cabashada ma ahayn intan oo kaliya balse siyaasiga weyn ee xisbiga mucaaridka ah ee cid u qaabilsan xidhiidhka gobolada Awdal iyo Salal Axmed Muumin Said ayaa isla markiiba cabiray dareenkiisa diidmada ah ee ku aadan mudaharaadadan waxaana uu carabka ku dhuftay in ay tahay wax aan ummadda reer Somaliland qaban in dadka reer Awdal iyada oo muddo 3 maalmood ka yar u madaxweynihii hore ee Daayir Rayaale ka in xilka ka sii maqan yahay ay haddana mudaharaadada noocan oo kale ah sameeyaan soo jeednaa mudaharaadka sababta ugu soo jeednaa waxa weeye suurta iyo dhalinyarta yaryar in la kiciyo oo ay suuqa ay maraan oo shiid la bilaabo absolute anagu waxaan leenahay arrinkaas waa qalad wax loo dhan yahayna maaha oo reer Awdal loo dhan isoogiin maaha Somalilandnimaduna waxa weeye waa arrin muqadas ah oo maartaan laga maarmaana oo lagu qasbayaa waxana aad u qurux badan in la ilaaliyo nabadgelyada reer Awdal muddo 8 sano ayaan Somaliland maamuleynay marka hadda madaxna faa'iido 8 sano maamuleynay 3 shadeeda mudaharaad sameeyaan waa wax ceeb ku arrin Awdal wixii la tabanayna wada hadal in lagu doonto ay aad u qurxoon mal kastaba xaaladu ha ahaadee mudaharaadadan maanta dhacay ayaa waxa ay ahaayeen kuwa sii qorshaysan isla markaana saxaafadda lagu sii wargeliyay mana jiraan haba yaraatee wax khasaare ah oo uu geystay mudaharaadadaasi labada ah ee maanta ka dhacay magaalada Boorama ilaa iyo haddana mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal kama ay hadal in dadkan cabanaya ay la kulmi doonaan iyo in kale عبد العلي يوسف هون كيبل تي في بورما.